boqolkiiba 83% oo Mareykan ah ayaa waxay sheegeen inaysan ku qanacsaneen jihada wadanka oo madaxweyne Biden u wado, halka boqolkiiba 17% ay sheegeen waanu ku faraxsanahay jihada wadanka madaxweyne Biden uu wado. dadka 83% tiradooda ayaa sheegay in sicir barar iyo dhaqaale xumo ay soo wajahday, sidaas daraadeedna aysan raalli ka ahayn jihada Mareykanka oo u socday madaxweyne Biden uu hogaaminaya, maadaama cuntadii iyo shidaalkii iyo guryihiiba sicir barar aad iyo aad ku dhaceen. 40 milyan oo qof ayaa early voting-kan codeysay. beri oo tahay taariikhdu November 8, 2022 oo ah maalintii ugu dambeysay ee la codeyn lahaa midterm election-ka ayaanu soo gaarnay. doorashadan ayaa noqon doonta leeyahay doorashada ugu xamaasada badan ee ku tartami doonaan guduudka waa Republican-ka xisbiga Jamhuuriga iyo buluuga xisbiga Dimuqraadiga ciddii hanan lahayd aqalka hoose iyo aqalka sare ee Mareykanka. laakiin su'aasha isweydiinta badan ayaa waxay tahay yaa ku guuleysan doono, yaana qaadan doono hanan doono guusha habeen dambe qaadan doono, ma xisbiga Dimuqraadiga mise xisbiga Republican-ka. qaarta meel joogta waa salaamantiin, waa Maxamed Faarax. dhammaantaa video ku aragtay social media la wadaag dhammaan asxaabtaada, fikirkaagana ka dhiibo. waa mahadsantihiin. aan ku bilaabe sababtiin beri waa midterm election, waa maalintii ugu dambeysay doorashada. hal bil oo early voting ay soo soconay, beri ayaana ugu dambeysay maalintii la codeynayay November 8, 2022. waxaa tartamaya xisbiga Dimuqraadiga xisbiga Republican. doorashadan waxay u dhaxaysaa kaliya labada xisbi legislature-ka, aqalka hoose iyo aqalka hoose ciddii xukumi lahayd. 435 oo aqalka hoose ah iyo 100 senator ah, intana 535 kan qof ay u dhaxaysaa, laakiin dhammaantood cod ay doorasho wada galayaan. badan qod ayaa laakiin galayo. hadda waxaa haysto aqalka hoose iyo aqalka saraba xisbiga Dimuqraadiga. White House-na saa ogtihiin madaxweyne Biden baa haysto saddexda meel oo sharciga executive iyo legislative laga dejiyo Mareykan. waxaa haysto Dimuqraadi. Jamhuuriga wuxuu haystaa oo kaliya judiciary-ga, maadaama 6 judge ay haystaan iyo 3 judge oo Dimuqraadi ah. balse beri waxaa leeyahay dabeel tuufaan gudud ah ayaa soo socoto. xisbiga Republican-ka ayaa dhaarsan, waxayna rabaan inay labada aqal la wada qaabsadaan ama midkood ay ku guuleystaan. haddii aan ku horumarnay Dimuqraadiga ay ku guuleystaan beri mar kale, maxaa suuragalaya, maxay suubanayaan? haddii Dimuqraadiga ay ku guuleystaan, waxay suubanayaan shuruuc badan ayay sii dejinayaan, ayay sharci ka dhigayaan, sida in dumarka iska soo tuuri karaan cunuga, abortion law, paid family leave, child care subsidies, universal pre-care, pro act iyo kuwa badan. hadday ku guuleystaan labada aqal ee weli ay sii haystaan Dimuqraadiga, waxay ballan qaadeen inay shuruucyahan baasin doonaan, inay ku guuleysan dadkan Mareykankana ay horumar gaarsiin doonaan, dhaqaalaha iyo qaabka wadanku u socdana wax ka bedeli doonaan. haddii laakiin laga guuleysto Republican-ka oo Dimuqraadiga laga guuleysto, waxaa adkaanayso madaxweyne Biden in 2024-ka uu soo laabto, waayo wax walba waxaa hor istaagaya Republican-ka. hadduu Republican-ka guuleysto oo hal aqal qaato ama labada aqal ku guuleysto, waxaa adkaanayso in madaxweyne Biden 2024 marka la tartamo, waayo shuruucda Mareykan waxaa la ansixiyo lawmaker-ka, aqalka hoose iyo aqalka sare la'aantiis madaxweynaha Mareykan wuxuu yahay male kursi ayuu White House kaga fadhiyaa kaliya. wuxuu u baahan yahay si uu ku guuleysto shuruucdiisa u meelmariyo ama fikradaha iyo ajandaha iyo wuxuu rabo u meelmariyo, waa in labadaas xisbigiisa ay haystaan. hadday Republican-ka guuleystaan waa sidee rabaane, waxay noqonaysaa 2 sano oo carqalada. madaxweyne Biden taakay ku haanayaan, meeshiisa ayay fadhiisanayaan, waxay u ogolaanayaan male, waxyaalihii xataa hore loo ansixiyey dib u soo celinayaan. waxaa adkaanaysa madaxweyne Biden in 2024 uu tartamo. sidii la wada og yahay, weli ma qeexin madaxweynihii hore ee Trump ayaa wuxuu rabaa inuu tartamo mar kale. waxaa la rajaynayaa madaxweynihii hore Trump iyo madaxweyne Biden inay tartami doonaan. haddii Republican-ka ay istaajiyaan ku raayaan beri doorashada, waa guul u soo hoyatay xisbiga Republican-ka iyo madaxweynihii hore Trump. gobolada doorashada ugu adag ka dhici doonto waa kuwan, waa Pennsylvania senataradooda. haddii uu ku raayo Dr. Mehmet Oz oo aad taqaaneen dhaqtarkii asal Turkish Mareykan ah, waa dhaqtarka waana haddii ku raayo wuxuu noqonayaa senatarka kaliya ee muslimka aqalka sare galo. laba aqal sare aqal hoose ayaa leenahay dadkan muslimiina, laakiin weli qof senatara oo muslimiina Mareykan ma dhicin. Dr. Oz
ولا يقال دكتور عانا شو عان له وريبابليكان وحول ترتمايا جون فيرمان بنسلفانيا وحال رجانيا إنه أسجل راي ونقضه مسلم كيوري سنة الكسوغل وحول ترتمايا تيجتك ريبابليكانكا سيدا كله أوهايو قبل كان جوجو تيم راينو الديمقراطية يا لا ترتمايا جي فانس وريبابليكانا ستيت اوف جورجيا وأيضا عادي هذا لباب مذوقة oo Walker iyo Warnock ayaa waxay ku tartamayaan senatorka waana xamaasad aad xag weyn ka socoto sidoo kale Nevada, Colorado, Arizona, New Hampshire, North Carolina iyo Washington ayaa iyadana doorasho in lagu fiirnaa ka socota badankood waxaa hogaaminaya qaar dimuqraadi qaar Republican laakiin maalinta talaadada ayaa la kala ogaan doonaa cidii koreyso senatoriyaashan dhamaantood waxaana isha badankeed lagu hayaa in dadka qobarada sheegeen siyaasiyiinta in Republicanka ay qaadan doonaan senatarada hadda waa 50-50 Republican iyo 50 Dimuqraadiga Harris oo madaxweyne ku-xigeenka ayaa tie breaker noqota laakiin waxaa la rajeynayaa in Republicanka ay qaataan aqalka sare madaxweynihii hore Obama ayaa wuxuu u campaign garanayaa xisbiga Dimuqraadiga madaxweynihii hore ee Republicanka ayaa wuxuu u campaign garanayaa xisbiga Republicanka siyaasiyiinta loo meekaradooda meel xun ayay maraysaa battleground city kale isla tagay Pennsylvania ayaa maanta la wada joogay shan la wada joogay Ohio ilaa Georgia ayaa la tagay ilaa Arizona doorashada waxay noqotay doorashada ugu xamaasad badneed abid ugu dambeyntii su'aasha suudiinta maxaa waa yaa reen doono xisbiga dimuqraadiga mise xisbiga Republicanka saa hore ku sheegay qobarada siyaasadda waxay sheegayaan in shacabweynaha Mareykanka ay xanaaqsan yihiin boqolkiiba 83 ay sheegeen in 83% inaysan ku faraxsanaan jihada wadanka u socdo dhaqaale xumo iscir barar dhaqaale oo soo wajahay dhaqaalahooda cuntadii oo kacday raashinkii oo kacay gaaskii oo kacay guriyihii oo qaali oo daraadeed waxaa la filayaa caradaas ay shacabka qabaan in Republican aadaan ay doortaan Republican kuna eedayaan dimuqraadiga iyo Biden dhibka labada sano idinka ayaa noo keenay aan ku jirno gunaanadkii haddii aad tahay qof Soomaali Mareykan oo aad joogtid meelaha ay Soomaalida ku codaan sida Ohio kale Columbus oo kale fadlan u coday Ismaaciil District 3 u coday sidoo kale Munira Soomaali dimuqraadi xisbi dimuqraadi ku taagan tafaraaruqna meel askarina haloo coday hadaa Minnesota joogtid Soomaalida u coday anybody oo Soomaali tartamay ama dimuqraadi ama Republican ahaado u codeeya Soomaalinimada ayaa ka weyn sidoo kale ogaada cid aad u codaanaysaan iyo siyaasadooda iyo ajendadooda waxay aaminsan yihiin oo iga digniin qofka aad u codeynaysid waa inaad taqaanaa qofku uu yahay iska aqrisay ajendihiisa aad diyaarisay sidaad u ogaatid inaad qofka u codeynaysid si hadhow uu saameyn kugu yeelan again mar kale qof walba oo Soomaali Mareykan waa inuu codeeyaa doorashada bari waana haddaad meelaha Soomaalida ku barantaa qof Soomaali tartamayana waa inaad Soomaalida u codeysaa Ohio haddaad joogtid Columbus Ismaaciil iyo Munira u codeeya aan noqono hadda reer Ohio labadii ugu horeysay Soomaaliya state representative aan yeelano labadooda aan soo saarano waa maxamed faarax videoga dhamaan wada dhamaan asxaabtaada fikirkiinana ka dhiibta waa mahadsantihiin